komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa furay kulan lagaga doodayo hanaankii lagu maamuli lahaa anshaxa saxaafadda waqtiyada doorashooyinka. Kulankan waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee komishanka, asxaabta xusbiyada iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta warbaahinta oo horkacaya gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto. ugu horeyn kulankaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Imaan Warsame, wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaynu maanta isugu nimid waa waqtiga doorashada sidee baynu u gudbinaa waynu uga heshiinaa in muwaadin kasta uu helo xaqa uu leeyahay inuu helo war sugan saxan oo aan marna xaqii suuriga ahaa uu lahaa inuu doorashada xogteeda ogaado xogteedu ah halku doorashada ka gelayo sidoo maxay doorashadu u dhacayso waqtigay dhacayso ugu muhiimsan waxa weeye inay waxa halkan ka soo baxaya aan noqon berito wax la isku qabsado wax clear ah ay ahaato wax cad oo qof waliba marka uu arko maxaan ku yiraahdaa uu fahmi karayo laakiin haddii language lawyer lagu qoro oo dabadeedna hadhow tafooda la isla galo dibkeeda yeelanaysa. marka waxaan soo jeedinaynaa in maxaan ku yiraahdaa ay noqoto wax cad noqotana wax la sameyn karo oo aan macquul ahayn inaan la sameyn karin. intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay kuna dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay kulankani qaar ka mid ah asxaabta xusbiyada, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa inaynu gorfaynaa isla eegnaa haddii lagu soo gabagabayn karana in lagu soo gabagabeeyo haddii se aan ay wax dheeraadii soo baxaan dee halkeeda, laakiin waxaad moodaa inay ka maqan yihiinba ciddii loo shaqaynayay inay ka maqan tahay xeerka. marka laba wasaaradda warfaafinta iyo laba solja laba dumarka iyo komishanka wax ku leh marka aad eegto in dadkii ay ahayd inay hawshan ayaga laftoodu ka qayb qaataan ee ugu awoodda badnaaba ka maqan. marka qarannadan baa ku baabaa in aad iyo aad si taxadir leh oo qarannimo ah oon qof jeclaysi lahayn oo aan qof riixi lahayn warbaahintu ay dee qaranka sida walba waday ay u wado xil gaarana weliba iska sii saarto wixii keenaya isku dhac shacbigeenana had iyo jeer ay ka taxadirto sida walba uga taxadiri jireen. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto, waxaana ku dheeraaday in saxaafaddu dhexdhexaad u tahay xisbiyada qaranka. gabagabadiina qaar ka mid ah warbaahinta oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa waxa loo qaybiyay qoraal 2 page ka kooban oo ku qoran 2 luuqadood si ay uga doodaan anshaxa saxaafadda. Liibaan Cismaan Cali, Ariel TV, Hargeysa.